soo dhawaada gabadhan waxay rabtaa inay hooyadeed lama filaan u sameeydo maadaama la gaaray sanad guurida arooskeeda laakiin hal mar guriga waxa ka soo baxay hooyadeeda boorsadeeda wadato ninkeedana waxay ku dhahaysaa farxada wasaqda ay ugu taaban gabadheeda oo ka murugootay sidii hooyada u dhaqmaysaa waxay weydiinay halkee u socotaa waxay taagan tahay waxaan u socdaa meel aan si degan ugu noolaa karo meeshaan ku noolaa karin ujeedadu alwax way gurigan inuu ugu soo dumaa laga yaabaa kadib aabbuhu wuxuu bilaabaa inuu gabadhiisa guriga gal ku dhaho si oo midaan si gooniya ula hadlo waxa weydiinaa haddii aan qaldanayn midkii saaxiibkaaga ahaa u socotaa soo maahan haahay ku dhahaysaa waa saxan tahay meeshana way isaga tegi kadib aabbuhu waxa u yimaaday gabadhiisa oo meeshaan fadhida waliba iyadoo murugaysan waxay isku dayday inay meesha isaga tagto laakiin markay istaagtay intay wareertay iyadoo dhulka ku dhici rabta aabaheeda qabtay isla markiiba intuu soo qaado isbitaalka toos u keenay dhakhtaraddan markay gabadha baaritiin ku sameeyda aabaha waxay u sheegaysaa in gabadha fitamiiniskeeda ay hoos u dhaceen sidaas darteedna waxay bilaabaysaa inay u qorto cuntooyinka ay fitamiiniskaas ku jireen intuu ugu sheekeeyay xaaladii isaga iyo xaaskiisa dhex marto haddana wuxuu ku dhahaa anigu waa aqaanaa sida cuntooyinka loo kariyo gabadhiyana waa ku filanahay ugu dambeyn isbitaalkii way ka soo baxeen aabbuhuna dadaal badan oo sameeyey cunnadii waa u soo kariya laakiin iyada ma cunaysa murug darteed laakiin isagu muusan quusan ugu dambeyn wuu ku guulaystay inuu cunnada siiyo haddana intay soo baxeen isbitaalka dib ugu soo laabteen waa sida ay dhakhtaradu u sheegtay kadib aabbo wuxuu bilaabaa inuu dhakhtarada uga mahadceliyo maadaama uu sameysay dhakhtar wuxuu u sameyn lahay wax ka badan gabadhiisa waxa uu diraa inay biyo hoos uga soo qaada maadaama uu rabay dhakhtarada inuu si gooniya ula hadlo laakiin sheekadooda iyagoo dhammaysanay midaan dib u soo laabatay iyagoo meesha marayay waxay ku dhahaysaa adiga dhakhtarada isgaadgaad ku weyda Soomaan anigana sidaa darteeda biyaha iigu dirtay intaasna waxay u raacinaysaa si dhakhsi leh waxaan ugu soo laabtay waxa rabay inay sheekadiina dhageysto laakiin isagu wuxuu u sheegaa gabadhiisa inaysan waxaas waxban ka jirin oo uu sugayo hooyadeed inay u soo laabato iyagoo gurigeeda jooga hal mar aabaha waxa soo wacay dhakhtarada iyadoo u sheegaydo inay gabadha ugu hayso xog cusub marka uu yimaadana meeshii ugu sheegi lahayd xogta gabadhiisa isaga qada ku ballamine laakiin hadalkeeda dib ugu laabanay markii aragtay midkan inuu u bilaabay inuu uga sheekeeyo sheekada xaaskiisa isla markaasna isbitaalka waxa soo gaarayay isaga xaaskiisa oo la soo dakhray anaguna waxaan ogaanaynaa midaan ninkii kale oo ay aaday inay is soo dagaaleen sidaas darteed oo dhaawacan u soo gaaray dhakhtaradu waxay u sheegaysaa inay kaligeed gurigeeda aadi karin sidaas darteed loo baahan yahay inuu qof wado midkaana waxay ku dhahaysaa ma raba inaan ninkaas gurigiisa dib ugu laabto ee fadlan gurigaaga ma ku raaci karaa wuu ka ogolaaday dhakhtaraduna waxay u malaysay inay sidaas eber ugu soo baxday markii ay guriga soo gaareen wuxuu ku dhahaa waxaa kaa codsanaa inaa hal wax noo sameeyo waxaasna wax kala maahan mar kale qulubtii qalbigaa naga jibin isla markaas gabadheeda u timaaday waxayna ku faraxday inay hooyadeed aragtay waxayna ka codsanaysaa inay mar kale ka tegin laakiin midaan hooyo wanaagsan maahan waxay bilaabaysaa inay saqdhaha hamiinkii guriga ka dhuumato midkiisa dilay u socotaa u maleyna laakiin midkan intuu arko wuxuu weydiinaa oo hadda ma waxaad rabtaa inaad sidaan ku baxdo soo kuma dhihin qulubtaa naga jibin waxay taagan tahay aniga ma rabi inaan ku noolaado waqti lasoo dhaafay ee waxaa rabaa inaan meeshan hore uga sii socdo ugu dambeyn aabbuhu wuu xanaaqay iyadana wuxuu uga digaa inay meeshan dib dambe ugu soo laabato subaxdii isagoo jikada ku jira oo quraacda karinayo wuxuu arkaa gabadhiisa oo hooyadeed raadinaydo si ay murug ku jirto wuxuu ugu sheegay inay hooyadeed hadda baxday ayna mar dambe dib u soo laabadoonin sida markii hore isla maalintaas dhakhtarada isbitaalka ugu imaanayaan maadaama ay midda yar rabtay inay ubax guddoonsiido maadaama ay caawisay iyaduna waxay ku dhahaysaa idinkaa mahadsan sababtoo ah aniga weligay qof aan daaweeyey sidaan camal iima samaynin aabbuhuna wuxuu ku dhahaa qoftii lasoo daqraayo waa ka soo dhammaaday ee hadda ka waran haddii aad labadeena nagu soo biirto iyaduna way ka ogolaatay waxaanay isku raaceen wakhtiga ay isgoorsa lahaayeen muuqaalkuna uu dhammaaday leegnosa